رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. mahad ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala naga dhigay dad islaama ku abtirsada kelimada qaaliga ah ee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam. intaa kadib waxaan u mahadinayaa allah ii dooray inaan noqdo qof dadka muslimiinta ah ku caawiya kalaamka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam. sidaa awgeed walaalayaal waxaan u mahadnaqayaa dhammaan guud ahaan dadka reer somalilan, gaar ahaan xukuumadda somalilan. waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa maayarka halkaa fadhiya iyo guddoomiyaha degmada iyo maasha allah nabadoonka guud suldaanka guud hawd, dhakhtarka iyo dhammaan culummada halkaa fadhisa. barnaamijkan waxaa maarata kule de insha allah taala soo diyaariyey barasaabka si aan u ogaano waxqabadkeenna looga warbixiyo ee dadka shakiga ku jiraan looga saaro. saad garanaysaan waxaan deganahay magaalada boosaaso. camalkaan hayana waa midkaad ka aragtay youtube-ka. ma ihi sixiroole, ma ihi qof shaydaan la shaqaysta. waxaan ahay dadka muslimiinta ah nin jecel inuu anfaco, sida nebiga sala allahu alay wasalam inoo tilmaamay: man istidaaca minkum an yanfaca aqaahu falyafcal buu nabiga sal lla alay slam. sidaas oo kale ah haddii uu awoodo midkiin inuu anfaco walaalkii ha anfaco. waxaan akhriyana waa waxaad maqasheen, mana qarsoona anigu ma ihi fooxiye ama faaliye ama saaxir la dhuuntay waxa uu sheegayo. sameecada waaweyn baan ku xiray, waxa ka soo baxayana waa kalaamu rabbilcaalamiin. qofka garanaya, qofkaan fahmaynina waa loo sheegay in waxaan akhrinayo qur-aan yahay. halkana waxaan u imid inay tahay dalkaygii ama ehelkaygii. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay maaratay isleeyihin ninkani waa fog yahay, laakiin dadka ha loo sheegay inaan ahay 70% somalilander. adigu sidaa doonta usoo baar. waxaan nuugay naas baan nuugay. awlaadeedoo dhanna waxa weye waa somalilander weeyaan. marka meesha iskama imaanina waxaa keenay dhiig iyo hilib. waxaana doonayaa inaan u hiliyo dadkayga la sixray ee sixirka lala daba istaagay. dadku markay yimaadaan boosaaso waxaanu ku samaynay diiwaangelin baanu ku samaynay 6,000 oo qofood waxaanu qornay hal sano 12 bilood 6,000 oo qofood oo ka yimid boorame, burco iyo hargeysa. dadka yaa sixray. su-aashu waa intaa weeyaan. wayna iska caddahay dad baa sinji iyo faracule inay ummadda muslimiinta kula mashquulaan sixir. waana la garanaya meelaha la sheegayay loo furay sixirka dadka in lagu sixro. waxaan ka codsanayaa dowladda somalilan inay u kaba gashato dadkan suxarada ah iyo dadka hoosta ku wata ee dadkoodii baabi'iyey. dumarka maanta ugu dambeysay aanu qur-aanka saarnay ilaa 1,200 bay gaarayeen. 850 qofood kama yarayn dumarka sixirka qaylinayay. waxaa la sixray waa hooyada, waxaa la sixray waa walaasha, waxaa la sixray waa gabadhaadii. taas waxaan ka codsanayaa dowladda, culummada somalilan sharafta leh ee qiimaha badan ee ahludiinka ah iyo inta qur-aanka taqaanaba waxaan idinka shafayaa. dadkii waa la sixray, cadow baana haysta. jin ayaa ka qaalib noqday, 4 saa ka qaylinaya. ishu way u dheer tahay. waxay doonayaan qur-aanka in loogu kaalmeeyo. qiyaamana waxaad baratay waa lagu weydiinayaa. waxaan kaa codsanayaa inaad samaystaan xarumo waaweyn oo dadka lagu cilaajiyo, ilaahayna loogu dhawaado subxaanahu wa tacaala. adiga sheekh iscilaaji, ilmahaaga cilaaji, dhammaan inta ehelkaagana u sameey waqti aad cilaajiso. maxaa yeelay qur-aanku waa dawo, ilahay baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala. waxaan leeyahay cadowga ama xasadka aan ogolayn hawshan la qabto. hawshan waa la wadayaa, mana joogsan doonto ilaa inta aan noolahay. haddaan dhintana kuwo kale oo u tababaran ama aan dhalnay ama nala dhashay ama ehel nooc unbaa soo bixi doona. waxaan si gaara ugu dirayaa niyahow hadalka ay sheegayso hubso. rag baa istaagay oo yiri ninkaas jinnigu la shaqaysta waa sixiroole si ay dadku u waswaasiyaan. arrinkaas ilaahay ka caafiyo, anigu waxba kuma haysto. laakiin hubi, ilaahay ayad qur-aan ku sheegay hadduu idin yimaado mid beenlow ah caddee hadalkuu leeyahay. waxaad leedahay waa la yidhi, waa lagu yidhi, shaydaan baa ku yidhi, anigu cafis baad naga tahay. laakiin walaal intaad aniga u mashquuli lahayd
ummaddu maanta kaalmay doonaysaa diinka waa taqaanaa u kaalmeen marka hadalkan waan dheereeyey waxaan diyaar u ahay inaan shaqadaa wado weliba noloshayda aan ka siiyo waqtiga ugu dheer dalkan meeshaan hadda imidna hargeyso dadkii baanu maamuli weynay waa la kala celin waayey rag iyo dumarkii baa isdhex galay sidaasaan nagu kaliftay inaan soo dhowaano halkan aan joogana waa meesha waxaa weeyaan maaragtay dee aan isleeyahay haba lagugu duugo marka ninka luqluuqa maraya ee xumaan raadiska ha ogaado inaan ahay nin somalilandana ha loo sheego waa fariin gaara hadduu sheekh noqon lahaa iyo hadduu shaydaan noqon lahaaba saa ha laga gaarsiiyo dalka iskama iman waan u dhashay marka intaasaan kusoo koobayaa waxaan qaldana nafay shaydaan bay ka ahaadeen waxaan saxayna ilahay baa nagu dhawaaday وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم